dhawaan wasaaraddu waxay soo bandhigtay natiijada qiimeyn ay ku sameysay jaamacadaha dalka ka jira oo ay soo bandhigtay liis ay sheegtay inay ka gudbeen qiimeyntii la sameeyay. qiimeyntaas waddan noocee ah loo maray imise jaamacad ayaase ilaa ay hadda u suurta gashay inay ka gudubto qiimeyntaas? waa su'aal aad muhiim u ah. dabcan waddanka saad la socotaba wuxuu hal jaamacad ayuu lahaa oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo markaa ka diiwaan gashan adduunka oo dhan oo la yaqaan inay tahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. burbur kadib wixii loo gaaray 99 ayaa waxa soo bilowday jaamacadda private inay dalka ka hana qaadaan. dabcan waxay noqotay marka dabcan institutionadeena dalku aad u daciif u ahaa ama qaarkood markaas aysan jirin yaa waxay noqotay inay kala hormaraan jaamacadihii la furi lahaa ama criteria lagu furi lahaa loo diyaarin lahaa iyo dabcan jaamacadihii waxa marka hormaray institutionadii ayagoon raacaynin nidaamkii loogu talagalay in jaamacad lagu furo. waxay noqotay marka in wasaaradii ay ku soo koobantay warkeeda okay haddaad la timaado intaan diiwaangelin ayaa idin sameynayna laakiin macnaheeda accreditation ma ah ama ictiraaf ma ah. taas ayaa waxay gaartay dalka inuu yeesho 169 jaamacadood in la diiwaangeliyo oo dalka oo dhan ka kooban. marka waxay noqotay in 169 jaamacadood mar ka dambayso dabcan saad og tahayna problemada sidii u kala horeeyaan ayaa loo xaliyaa. wadanka waagi hore waxa aad loogu mashquuli jiray ardayga Soomaaliyeed fasalka koowaad ama fasalka 8aad inta u dhaxaysa dhigta sidee waxbarasho loogu helaa marbii noo taagnay, secondary-ga sideen u xoojinaa marbii noo taagnay. waxaan soo gaarnay marka xilligii jaamacadaha laftooda la fiirin lahaa. waxay noqotay marka in la helo hay'adda tacliinta sare maxaa yeelay wasaaradda waxay ka kooban tahay waxbarashada iyo tacliinta sare. waxay noqotay marka in la helo guddi iyo nidaamkii jaamacadahan lagu qiimeyn lahaa in la sameeyo. waxaan la shirnay jaamacadihii 2019 18 akhirkiisa ilaa 19 waxaan u sheegnay wasaaradda inta sharciga uu ka dhameystirmayo inay ku dhawaaqi doonto guddi tacliin sare kuwaas oo lagu soo xuli doono khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo. isla markaana waxaa loo soo bandhigay nidaamkii qiimeynta loogu sameyn lahaa annagoo mar walba tixgelinayna duruufta dalka uu ku jiro iyo waxa looga baahan yahay in ogaadaan. dabcan shirar badan oo isdaba jooga iyo bandhigaad badan waxaan u bilowday processkii wuxuu soo bilowday 2019 bilowgiisu bilowday. markaasoo aan ku bilownay inaan dhahno horta jaamacadaha dalka ka jira profilekiina iyo nidaamkiina soo dira. maxaa yeelay jaamacad dalka dhisan oo private-ka ah waxay u kala qaybsan yihiin dhowr jaamacadood. jaamacadda ummadda waa garanaa waa jaamacad dawli ah, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. waxaa jira marka jaamacada foundation ay abuureen oo ah مثلا jaamacado foundation ay wax isugu dareen oo aan ognahay base-ka jaamacadahaas iyo mustaqbalkooda inay leeyihiin. jaamacado waxaa jira sameeyay rag ganacsata ama business oo iyaga business ay leeyihiin oo aan ognahay jaamacadda mustaqbalkeeda dhaqaale iyo meesha uu gaaray. waxaa jira jaamacado dad shakhsiyaad ay sameeyeen. marka waxaan si aan horta u ogaano waxa loo diyaariyay foomam in jaamacadaha horta aan ogaano taas oo aan ka dalbanayno jaamacadda ma foundation ba jaamacadda ma private shakhsi ah jaamacadda ma dad ganacsatada maalgeliyay oo aan ogaan karno. taa markii noo kala cadaato waxaa noo soo baxday inaan ogaano marka macluumaad la yiraahdo ayaga inta u dirnay inaan qiimeyn isku soo sameeyo. oo qiimeynta maxay ka koobantay boardka jaamacadda ilaad waxaan qiimeynaynaa maamulka jaamacadda iyo structure-ka jaamacadda ilaad ma yahay boardka marka laga soo tago gudoomiyaha ku-xigeenka jaamacadda dabcan qualification-ka ay leeyihiin khibradda ay u leeyihiin macallimiinta jaamacadda wax ka dhigo مثلا انت كليته ka furan macallimiinta jaamacadda ka dhigo hadii la kuliyada caafimaadka inaan fiirino kuliyada caafimaadka oo laga rabo inay soo saarto arday daaweynayo ummadda Soomaaliyeed ma yaalan agabka loogu talagalay yani ma gaarsiisan yihiin inay level dhakhtar soo saaraan. macallimiinta wax ka dhigayo ma yihiin kuwa khibrad u leh. dabcan level jaamacadda marka wax laga dhigayo waxaan ka rabnaa ardayga bachelor qofku wax barayo inuu yahay qof master iyo wax ka sareeya haysta. master ka haysta laftiisa inuu darajada gaaro bare inuu kaaliye bare gaaro inuu ka sii sara maro oo professor uu gaaro. dabcan waxa soo dhan marka waxaan ku leeyahay jaamacadihii guddiga shaqadooda bilowdeen waxa loo kala diray jaamacadihii dalka oo leeyahay isa soo qiimeeyay idinka marka hore noo soo dira. kadib markay soo direen waa wajiga labaad yaa waxaan u dirnay guddigii iyo qiimeyntooda soo sameystay. jaamacadihii tageen waxay marka sameeyeen wax la yiraahdo checklist. waxaad ii sheegtay kuliyada caafimaadka inuu intaas professor ay ka dhigaan waxaan u baahnay professor Hebel iyo professor Hebel accreditation kooda iyo waxaan u baahnay CV-yadooda feelasha waxaan rabaa macallimiinta kale oo dhigtay inaan qiimeyn ku sameeyo qalabka idin yaala
haddaad isbitaal leedihiin ood leedihiin jaamacadda waxay leedahay university hospital in isbitaalkana la geeyo aan soo aragno dhakhaatiirta ka howlgasha aan aragno yacni nidaam noocaasoo kale ayaa loo maray kadib waxaa noo soo baxday in qiimeyn la sameeyo markii lasoo ogaado qiimeyntaadii waxaa ka dambeysay evidence base in la tago oo la yidhaahdo intaasaad iisoo dirtay sax miya ahaa waxaad ii sheegtay 10 macalin oo midkiiba uu yahay PhD inuu jaamacadda wax ka dhigo ma heli karaa dokumentigoodii ma ii kala sheegi kartaa ma la kulmi karnaa marka tii markii la maray ayaa waxa soo baxday ugu yaraan standardka aan u dejinay dabcan weli waxaan aaminsanahay aniga jaamacadaha dalkeena inay shaqo xoog leh u dhimantay laakiin kama tegayno mar walba duruufta dalka uu ku jiro maxaa yeelay ma lama dhigi karno wadamada stability-ga ama istiqraarka ama nabadda haystay oo weligood usa dagaalada ka dhicin sida Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo hadduu ilaahay ku runay Suudaan iyo ma lama dhigi karno annaga waxaan ku bees gareynaynay wadan dagaal ka soo baxaya u baahan in jaamacadaha kor loo qaado meelaha qaarkood wasaaradda ay ka caawiso meelaha qaarkood looga digo meelaha qaarkood ma taqaanaaye digniin laga siiyo markii noo soo baxday ayaa waxay noqdeen 41 jaamacadood in ay ka gudbeen wajiga koobaad oo macnaheedu yahay jaamacad walba waxay haysataa qiimeyn gaar for example jaamacadaha qaarkood waxay ku gudbeen 80% qaarkood 70% oo ah average-kii ugu badnaa kadib maxaa hoos yaala jaamacad walba waxaa loo diray warqad gooni oo la leeyahay intaasaa soo gudbisay weli waxaa kaa dhiman 1 2 3 4 kuwa aan soo gaarin laftooda warqadaha loo diray waxaa leeyahay waxaa idiin dhiman intaas processkan marka waa process aan isleeyahay waqti u qaadan doonaa oo laga yaabo sanadka soo socda qiimeynta marka la sameeyo 41 kuwa ka jira laga yaabo inay hoos u dhacaan kuwa hadda aan soo galin fursad u helin baa laga yaabo inay soo galaan waana nidaamka lagu cabiro jaamacadaha wax kale Soomaaliya kaliya ku kooban ma aha ka dawlad ahaan dabcan dawladaha aan la macaamilno waa nidaam ay isticmaalaan adduunka dhan laga isticmaalaa marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan institutionada jaamacadaha oo wasaaradda la shaqeeya inay ku niyad samaadaan waa barnaamij tayeenta waxbarashada tacliinta sare loogu talagalay waa barnaamij aan rabno in lagu aamino waxbarashada dalka waa barnaamij aan rabno dawladaha nala macaamila ay muddo ku soo celceliyeen inay helaan wadankan jaamacadihiisa kuwa muctarafa kuwa muctaraf ahayn laakiin waxaan mar walba u sheegnaa dal burbur ka soo baxay tayada waxbarashada kor u sii socoto waxaan rajaynaynaa mar ka dambeyso inaan kor u sii qaadno in jaamacadahan tirada badan oo weli aan ku qanacsanayn in mar ka dambe ay sii kala haraan in la gaaro in jaamacadaha ayaga dhexdooda ay tartamaan oo aan helno jaamacada A iyo jaamacada B iyo jaamacada C laakiin ay ku timaado nidaam daahfurnaana oo la isla xisaabtami karo oo jaamacadaha aan qiimeyn haddii cabasho qabaan xataa si publiga inta u hor fadhiisana aan ummadda u soo bandhigi karno